الرحمن الرحيم كلانتي wacan oo wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal halkan waa Golson TV ku soo dhawaada warar falanqeyn oo bixin iyo dhacdooyin aynu halkan ku baahino kuna falanqeyno waxyaabaha barnaamijkan aad ku daawan doontaan inaan idin soo gudbin doono haddii la weeraalo ka noqdo daawadayaasha saaxiibada iyo asxaabta halkan sida tooska wararka falanqeynta uga socdo waxa ka mid noqon doona dagaal culus oo xooggan ayaa ka qarxay Galgaduud bartamaha Soomaaliya wararkii ugu dambeeyay soo gudbin doona haddii la weeraalo ka noqdo dagaalkaasi cidda u dhaxeeya iyo arrimo ku saabsan xogo arrintaasi la xiriirda sidoo kale barnaamijkan waxyaabaha aan idinku soo gudbin doono waxa ka mid noqon doona waatee dawladda islaamka ah ee u bareeday boobka ugu badan ka geysata xeebaha Soomaaliya qodobada iyo kuwa kale ayaa daawan doontaan soo dhawaada daawadayaal saaxiibayaal haddii aynu ku bilowno daawadayaashii nagu xirano barnaamijkan anaga marka hore ka codsanayna inaad la gareyso dagaal culus ayaa waxa uu ka qarxay Galgaduud bartamaha Soomaaliya wararkii ugu dambeeyay amuurtaasi ayaanu falanqeynaynaa warar kala duwan ayaa ka soo baxaya gasaaraha dagaal culus oo maanta ka qarxay duleedka magaaladaasi la yiraahdo Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug ka u dhaxeeyay laba maleeshiya beeleed oo hubeysan la wareedda lagu kalsoonaan karayo ayaa inoo sheegay in haatan dagaalku ka socdo aagga deegaanka lagu magacaabo Xanan Buure oo ah halka uu xoogiisu ka qarxay diriirtan labada dhinac u dhaxaysa wararku ayaa inta ku sii daraya in dagaalkan la isu adeegsanayo hub noocyadii kala duwan waxaana ka dhashay gasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac sidaynu ogaanayno dagaalkan ayaa ka dhashay muran dhuleed oo soo kala dhexgalay labada maleeshiya beeleed oo ka soo kala jeeda Dhuusamareeb iyo Cadaado waa sida markaasi xubno xoogagaal ay ku warameen xaaladdu ayaa haatana mid aad u cakiran ama kacsan waxaana dagaalkan uu saameyn weyn ku yeeshay dadka shacabka ah ee ku dhaqan deegaanka Xanan Buure ee gobolka Galgaduud sidoo kale waxaa goobtu ka socdo dagaalka ku sii qulqulaya ciidamo kale oo gurmad ah oo ay markaasi kala helayaan labada dhinac ee ku diriraya halka ma jirto wax hadal ka soo baxay saraakiisha ciidamada dawladda iyo kuwa Galmudug oo ku aadan dagaalka maanta ka qarxay waqooyiga gobolkaasi gobolada dhexe ayaa waxaa marar badan ku soo laablaabtay dagaal beeleedyada kuwaas oo loo arko inay saameyn ku yeelan karaan dagaalka lagula jiro ururkaasi Al-Shabaab dhawaan ayay ahayd markii dagaal kan la mid ah uu ka dhacay aagga magaalada Cadalle ee gobolka Shabeellada Dhexe kaasi oo xalitiisa uu ku jirtay ama imika ku jirtaba dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka Hirshabelle iyadoo hay'adda nabad sugidda iyo ciidamada booliska halkaasi la gaarsiiyay inta badan diriirtan maleeshiya beeleedyadu ayaa waxay markaasi imaanayaan iyada oo qubarada ammaanka ama xubno dawladda federaalka Soomaaliya ka tirsan ay sheegeen in dhaqdhaqaaqaasi ay ka dambayso ururkaasi Al-Shabaab oo doonaysa inay fashiliso duulaanka ee diriirta ka dhanka ah ururkaasi taasi oo dawladda Soomaaliya doonayaan in markaasi awooddeeda isugu geyso xalinta iyo daminta weeraradaasi dawlad markaasi carbeed ama islaam ah ayaa dhaca ugu weyn markaasi ka geysata badda Soomaaliya ama xeebaha Soomaaliya biyaha Soomaaliya ayaa ka mid ah meelaha ugu qanisan kalluumaysiga caalamkan aynu dul saarannahay ama aynu ku noolnahay oo weli si weyn looga faa'iideysan biyaha Soomaaliya waxay si gaar ah ugu nugul yihiin kalluumaysiga sharci darrada ah maraakiib kalluumaysi oo ajnabi ah ayaa Soomaaliya kaga kalluumaysata qaab sharci darro ah warbixin ay soo saareen dhawaan qubarada la soo markaasi waa la socota hay'adda hubka ee saaran Soomaaliya ayaa xustay in doomo laga leeyahay dalka Iiraan ay yihiin kuwa ugu badan ee hanan markaasi sharci darro ama hanan aan sharci ahayn kaga kalluumaysata badda Soomaaliya gaar ahaan badda cas warbixintan ayaa intaas ku daraysa in doomaha ka kalluumaysta xeebaha Soomaaliya ay leedahay Iiraan lagu qiyaasay ilaa 134 doomood guddidu waxa ay sheegayaan inay heleen nuqulo dheeraad ah iyo shatiyo been abuur ah oo laga helay doonyo caalamka Iiraan sitay calanka Iiraan sitay intii lagu guda jiray xaqiijintan ama baadi goobka howlgallada ay fulinayeen ciidamada markaasi caalamiga ah ee shatiyadan ayaa u muuqday kuwa markaasi shaqeynayay muddo 45 maalmood ah sida ay cadeeyeen guddidu waxay sheegeen in dukumiintiyo la wadaageen
maamulka Puntland ay u caddaatay in bixinta khidmaddu ay gaarayso $6,111 Mareykanka. Bixinta iyo soo saarista dukumentiyada been abuurka ah. Guddidu waxay ku tali jiraan inay ururiyaan caddeyn dheeraad ah oo ay siiyaan fursad. Guddidu waxay warqado u direen Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan, waxayna markaasi codsadeen nuqullo shatiyo kalluumaysi ah oo Soomaaliya laga siiyey maraakiibta. Jamhuuriyadda Iiraan ayaa ku wargelisay guddida in maamulkooda ay u baahan yihiin waqti dheeri ah si ay u soo ururiyaan macluumaadka la codsaday. Haddii mid kasta oo ka mid ah 134 doomood ee calanka Iiraan uu bixiyo $11,000 si uu markaasi shati u qaato, markaasi wadar ahaan $1,650,000 Mareykanka ah ayay markaasi siin lahayd ama ay lacagahaasi u soo xaroon lahayd dowladda Soomaaliya shatiyo. Ciidamada booliiska badda ee Puntland ayaa qabtay ku dhawaad 14 doomood oo si sharci darro ah uga kalluumaysanayay xeebaha intii u dhaxaysay Oktoobar 2022 ilaa 25 Maarso 2023, kuwaas oo laga leeyahay Iiraan iyo Yemen. Midkoodna doomahan ma lahayn shati kalluumaysi. In ka badan $300 milyan oo Mareykanka ah ay Soomaaliya kaga luntay kalluumaysiga Soomaaliya, sida ay sheegtay IUU. Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa xukunno ku riday ilaa 36 ruux oo ajaanib ah, kuwaas oo sifo sharci darro ah uga kalluumaysanaya xeebaha Soomaaliya. 33 ka mid ah waxay ka soo jeedaan dalka Iiraan, halka 3 kalena ay u dhasheen dalka Bakistan. Haddaba, xaaladda kalluumaysatada. Kalluumaysatada Soomaalida ayaa la kulma duruufo adag xilliyada ay jilaabayaan kalluunka sababo ay ugu weyn tahay jariifka badda ay ku hayaan maraakiibta iyo doomaha shisheeyaha. Warbixinno ay ururisay hay'adda maxalliga ah ayaa muujinaya in heerka yaraanta kalluunku ay horseeday in muruqmaalka baddu ka niyad jabaan jilaabashada. Degmada Eel oo ka mid ah deegaan xeebeedyada ku yaalla Puntland, kalluumaysatadu ayaa sheegaya inay hoos u dhaca kalluunku ay ugu weyn tahay jariifka doomaha shisheeye. Warbixinada ay soo saareen Qaramada Midoobay waxay kalluumaysiga sharciga ah ee Soomaaliya ku tilmaameen mid markaasi musiibo ah, markaasi sharci darrada ah mid musiibo ah ayay ku tilmaameen, iyagoo markaasi amuurtaasi eegayay ama markaasi ka hadlayay. Kulsii horeysa ayay ahayd markii la wariyay in doomo waaweyn iyo maraakiib shisheeye oo iyagu kalluumaysi ka sameynaya badda Soomaaliya ay waxyeello xooggan gaarsiiyeen ama ay gaarsiiyaan doomaha iyo markaasi Soomaaliya iyagu markaasi kalluumaysatada Soomaaliyeed ay ku jilaabtagaan, iyada oo la sheegayo in ay markaasi gooyaan xargaha kalluumaysatada ay u isticmaalaan ama shabaqa in markaasi ay kusoo dhacsadaan malayga iyo xayawaanada kale ee badda ceegaaga, taasi oo waxyeello xooggan gaarsiisa kalluumaysatada, iyadoo mararka qaar dhacda in markaasi la waxyeeleeyo sidoo kalena laga qaato wax soo saarkoodii. Xamse Barre, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, waxa uu kulan la qaatay mas'uuliyiin Turki ah. Xafiiskiisa ayuu kula kulmay madaxa bangiga Ziraat Katilmim ee laga leeyahay dalka Turkiga, kaasi oo markaasi xarun cusub laga furay magaalada caasimadda ee Muqdisho. Xamse Barre ayaa uga mahadceliyay madaxa bangiga Ziraat Katilmim hirgelinta xarunta cusub ee ay ka furteen Soomaaliya, wuxuuna sheegay inay kor u qaadayso iskaashiga ganacsiga, horumarinta dhaqaalaha iyo adkeynta cilaaqaadka ganacsi ee u dhexeeya labada bulsho ee walaalaha ah, waa Turkiga iyo Soomaaliya. Sidoo kale wuxuu ra'iisul wasaaraha kala hadlay fursadda ganacsiga ka jirta Soomaaliya ee u baahan in maalgashiga lagu sameeyo si bulshada Soomaaliyeed ay uga faa'iidaystaan kheyraadka ceegaaga dalkooda. Waxaa sidoo kale uu kulanka ku wehelinayay madaxa bangiga Ziraat Katilmim danjiraha dowladda Turkiga u fadhiya Soomaaliya, Ibrahim Yagli. Waa bangiga dowladda Turkiga ay leedahay oo xubin ka ah Ziraat Financial Group oo ka howlgasha 20 waddan oo kala duwan, lehna 15 shirkadood iyo 27 laamood oo dibadda ah. Waxaanu noqonayaa bangigii ugu horreeyay caalami ah ee dalka ka howlgala in ka badan 50 sano kadib, waxaana sidaasi axaddii sheegay bangiga dhexe ee dalka ama markaasi amuurtaasi ka hadlay. qaybihii ugu dambeeyay ee barnaamijku ayaanu joognaa daawadayaal, saaxiibayaal. Halkan waa Golson TV le garay shirgaray oo la wadaag saaxiibadaada oo ku maasantahay la socoshada barnaamijkan. Waxaan ka codsanaynaa marka hore inaad la garayso oo aad la wadaagto saaxiibadaada si aad u hesho warar falanqeyn, warbixin iyo dhacdooyin aynu halkan kugu soo gudbino kuguna falanqeyno. Ilmaam inaad la garayso si saaxiibo badan ugu soo gaaro saaxiib daawade oo ku maasantahay la socoshadeen.